بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، sida walaaluhu qoondeeyeen waxaan ka warrami doonaa qisadii ku saabsiisanayd islaamnimadii salmaan alfarisiy, abu cabdullah salmaan ibn اlislaam, ninkay culamaai taarikh ku tilmaamaan. salmaan waa صaxaabi jaliila oo saxaabadii waaweyneyd ee nebiga ka mid ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. waxaanu ka mid yahay saxaabadii cilmiga iyo zuhdiga ku caanbaxday. waa nin صaxaabiya oo raggii cilmiga ku caanbaxay ka mid ahaa, isla markaana ka mid ahaa raggii zuhdiga ku caanbaxay. waayo waa ninkii amiiru lmuslimiin laga dhigay inuu ka taliyo beershiyadii hore markay muslimiintu qabsadeen magaaladii madaa-in la odhan jiray, isaga ayaa waali looga dhigay. madaa-in waa magaalooyin yaryar oo boqoradii beershiya hore ay samaysteen, oo iminka iska xaafadun dacalkeeda ku taalla magaaladan hadda baqdaad la yidhaahdo. madaa-in markaa waa magaalo qusuur kala googo-ana, 7 magaalo yaryar oo isku naban, qusuur kala googo-ana. alqasri albaydaana uu ku yaalay, gurigii caddaa guriga la odhan jiray ee loogan talin jiray dowladdii beershiya. dhulkaa markay muslimiintu qabsadeen waa ninkii loo dhiibay. maca daalik waxaa la yidhaahdaa wuxuu diiday xataa meel la galo, geed buu iska hoos haadhsan jiro. markii dambe la yidhi aan guri kuu dhisno. ninkiibuu u yeedhay saxaabigee guriga dhisayo, wuxuu yihi maxaad dhisi doontaa? waxay ku yidhaahdeen mid haddaad istaagtana madaxaagu gaari doono, haddaad iskala bixisana cagahaagu aanay in badan iyana gaari doonaan. yacnii kookh yar uno aada hadhsato. halkaasuu nolosha ka joogay. qisasku markay yihiin sheeko dhab ah oo dhacday way ka cibro badan yihiin waxyaabo badan oo kale, bini aadamkana way kaga raad badan yihiin. salmaan qisadiisan aynu ka warrami doonna waa qiso tilmaamaysa qof bini aadamah oo xaq raadiyey. inagu waxaynu naqaanaa oo maanta agteenna ku caan ah safarada xoogsitagga ah, in dunidoo dhan loo meero, halka u dambaysiiyo halka u horeysaba la maro safar xoogsitaga. inta hadhayna inay ku wareysato oo warka ugu quruxda badan le kaa maqlaan uu noqdo hebel wuu gala. laakiin waxaynu marka kan akhriyi doonaa safarkaa ka gedisan. safar uu safray nin qoys ladan ka dhashay oo hanti haystay oo mujtamaciisa ka tirsanaa, laakiin safarkiisa oo dhami uu ku salaysayay inuu xaq raadiyo, inuu xaq baadi doono. safarkiisa uu ku salaysan yahay. walidaalik qisadatan waxaan jeclay inaanan riwaayaadka tirada badan lee taariikhtu soo arooriso soo qaadanin, ee aan soo qaato oo qura hal xadiid ama hal qiso oo sanadkeedu xasaniyey. yacni imaamu axmed xadiidka uu soo saaray oo rijaalka sanadkaa ku jira dhammaantood rijaalu صaxiix ba ay yihiin, ilaa iyo ibnu isxaaq mooyaane rijaal hiqaat ay yihiin. ibnu isxaaqna uu rajul xasanu اlxadiida yahay. xadiidkaasi oo culamada xadiidku ay ku tilmaamaan inuu sanadkiisu xasan yahay. xadiidkaasi markaa wuxuu ku saabsiisan yahay waa salmaan alfarisi iyo isagu iska warramaya, u warramaya saxaabi kale oo yar markaa, cabdillaahi bnu cabaas saxaabigii la odhan jiray buu u warramaya. waxaanu uga warramayaa taariikhdiisii nololeed ee xaqraadinta. cabdillaahi bnu cabaas markuu xadiidka warinaya wuxuu leeyahay waxaan ka qaaday min fii, afka salmaan baan xadiidka ka soo qaaday buu leeyahy. cid kale igama warramine salmaan laftiisa ayaa warka ii sheegay.
dhacdada tan waxaynu ka fahmi doonaa marka haddii alla yidhaahdo inaanay wada sax ahayn in laga dhigo qofku inuu majbuur yaho aanu waxba haynin. qofku inay bii-ada uu ku nool yahay iyo duruufta ku weegaarsan, aabbiyo hooyaha dhalay iyo hiddaha iyo taraa cidduu ka tirsan yahay iyo caqligiisu intuu dakaagiisu gaadhsiisan yahay, intaasuun inay xukunto oo uu yahay munfacil, yacnii qof isaga wax loo tilmaamo oo markaa aan ka dhex bixi karin inuu yahay. aynu tilmaamno insaanku hadduu niya saadiqa la yimaado, ikhlaasuu ku jiro, dhab ay ka tahay waxa kani uu raadceeyo inuu gaadhi karo, isagoo duruufta uu ku nooliyey iyo bii-ada uu ku nooliyey iyo waxoo dhamme ay dhanka kala taagan yihiin. waa xujada dadka caajisiinta ah, xujada tidhaahda dee maxaa sameeya, duruuftaa sacab ahayd, meeshaan ku noolayn baa caynka ahayd, noloshaa caynka ahayd, nolosha caynkaasoo dhan waa la bedeli karaa hadday dhabkaa tahay. waa xujada dadka kusaale ah, dadka caajisiinta ah. waxaa mudan runtii inaan tilmaamo intaynan qisadaba bilaabin, sheekha la yidhahdo moxamed ratib annabulsi oo ka warramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo ka dhigtay. sheekhaasi oo ka warramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo uga dhiganaya markuu masaladaa ka warramayo. wuxuu leeyahay insaanku hadduu xidhxidho ay dhab ka tahay oo ay casiimadu jirto inuu xaqa gaadhi karo, aan mithaal idin siiya buu yidhi. mithaalkiisaasi wuxuu ku bixiyey runtii mithaal maanta aada gariib dadkan maanta jooga ugu noqon karaa. wuxuu mithaal u qaatay nin 55 jir ku soo gaadhay isagoo umiya, 55 sannadood ku soo gaadhay isagoo umiya, dabeetana go-aanka a qaatay inuu waxbarto, qoraal iyo kitaabo bilaabay, qur-aanka xifdigiisii ku xigsiiyey, sulamkii sharciga ee shareecada loo marayey maray, dabeetana noqday sheekhii masar ugu weynaa, shaykhul azhar masar ka noqday. waa nin 55 jir waxbarasho ku bilaabay, qoraal iyo akhris iyo qur-aan la xifdiyo, isla markaasi gaadhay inuu noqdo shaykhil azhar. 96 jir buu ku dhintay markii dambe. wuxuu leeyahay shaykhul azharkaasi min rajul laa yaktub walaa yaqra fii sini 55 ku gaadhay ayuu ahaa buu leeyahy. laakiin markuu go-aankan iyo casiimada tan qaatay wuxuu noqday inuu shaykhul azhar noqdo muddadaa yare kooban. ilaahayna wuxuu inoo tilmaamayaa kula numidu haaulaaءi wa haaulaaءi min caطaaءi rabbik wma kana caطaaءu rabbika maxduura. idan waxaa aada u habboon inaynu qisada tan u fiirsanno. salmaan alfarasi radia allahu canhu wuxuu ku bilaabaya, wuxuu leeyahay waxaan ahaa nin farisiya, farisigu waa persian, erani, min ahli asbahaan, magaalada asbahaan la yidhaahdo ama gobolka asbahaan la yidhaahdo u dhashay, tuulada jayun la yidhaahdaan ka imi buu leeyahy. tuulo jay ayuu xadiidkaasi tilmaamaya. riwaayaadka qaarkood baa jayaan sheegaya magaca, qaarkood alfaada, laakiin waa lafdi farisiya. xadiidkan laakiin xasanka ahi wuxuu ku tilmaamayaa jayun in tuulada la yidhaahdo. idan waa nin reer asbahaana, eeraan ka tirsanaa, tuuladaasi ku dhashay. aabbahayna wuxuu ahaa buu yidhi dihqaanu qaryati, dihqaanka waxay idhaahdaan odayga magaalada, cumdaa u ah, ninka dee hantida iyo maalka iyo maamuuska iyo diin iyo waxba looga dambeeyo ee magaalada odayga ka ah ayuu aabbahay ahaa. waxaa meeshan ka muuqata salmaan inuu nin meel fog ku dhashay yahay, jaziira alcarab meel ka fog inuu ku dhashay, inuu yahay nin ka dhashay usro ama qoom dabka caabuda,
halkaa waxaynu ka dareemaynaa inuu yahay abcad insaan can ilxaq inuu ka tirsan yihi dadba kii xaq ugu fogaa nin dab caabudaya oo tuulo yaroo jayi la yidhaahdo ku dhashay oo beershiya dhexdeeda ku taalla waxa kaloo uu sheeganayaa aabbihii inuu dihqaan ahaa macnaheedu waxa weeyaan nin reer ladan ka dhashay inuu yahay reer ladan markuu qofku ka dhasho abnaada dadka wax haystaa ay dhalaan waxay ku dawaqaan xoolaha iyo tumashada iyo magaca iyo maamuuska iyo waa qof mashquula buu noqdaa qolada malaaxidadaabaa waxay yidhaahdaan kuwa adduunka waaye aakhire ku warwareega bay yidhaahdaan qolada malaaxidada ah qofku markuu adduunka waaye bay yidhahdeen unbuu yidhahdaa aakhiraan raadacaynaya yacni waxa weeyaan qofka adduunka haysta waxa ku badan waxyaabaha qofka bini aadamkaa xaqa ka weeciya qofkaasee waxba haysanini dee maba jiro wax badan oo xaqa ka weeciya waxaa ka muuqata salmaan ilfarisi inuu ka dhashay qoys ladan laakiin uu xaq raadinayey qur-aanku dad badan oo qoysas ladan ka dhashay oo xaq raadiyey oo gododgalu ka waramay fa'wuu ila lkahfi yanshur lakum rabukum min raxmatih wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa kuwii godka u hooyanaya asxaabu lkahfiba waxay culamaai taariikh tilmaamaan inay ahaayeen qoysaskii ladnaa iyo boqortooyada raggii ka tirsanaa inay ahaayeen salmaan ilfarisi wuxuu kaloo sheegay wa kuntu axaba khalqi illaahi ilayh guri ladanoo qura kamuu dhalane guri lagu jeceliyo ka dhashay waxaan ahaa buu yidhi aabbahay miduu dadba u jecel yahay ilmuhu wuxuu ariiq labaad ka fekeraa markaanay faamiliga isku fiicnayn laakiin ninkani wuxuu leeyahy faamiligu waana ladnaa waana laygu jeclaa sidaa daraaddeed waa waxyaabo wada tilmaamaya inay ariiq labaad inuu qofku ka fekeraa inaanay sokaynin waxa kaloo uu sheeganaya uu leeyahy aabbahay jacaylkuu ijeclaana wuxuu gaadhsiiyey buu yidhi inuu iila dhaqmo sidii inan yaroo jaariyada oo xataa intuu ii cabsado mararka qaarkood uu guriga igu xidhaba sida lay ilaalinayo lay koolkoolinayo gurigaaba marmar laygu xidhi jiray taasina waxay keensatay buu leeyahy inaan diintayadii aada ugu dadaalo majuusinimada ahayd dabcaabudka ahayd ilaa yaan ka noqday buu yihi qaطini naar yacni qaطini naarku waa imaamkii oo kale ninkan dabka hurinaya ee habeen iyo maalinba usoo jeeday caabidkee dee looga dambeeyo sheekhii diintaba ilaan ka soo baxay buu leeyahy oo ninka aan ogolaanayn dabka kale inuu saacadba damo ayaa noqday buu leeyahy waxay sheegaysaa markaa majuusinimadiisii halka ay la gaadhay kadib ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baa maalin maalmaha ka mid ah aabbahay wuxuu lahaa buu yihi dayca cadiima xoolo weyn buu lahaa xoolo badan dabeetana maalin buu guri iyo dhismuu wuxuu kaga mashquulay xoolaha iyagii kale tirada badnaa kadib ayuu aabbihii wuxuu ku yidhi yaa bunay inii qad shugiltu fii bunyaani hada اlyowm can daycati fadhab faطalicha aabba maanta waan xoolihii iyo arrimaheenna maamulkoodii waa ka mashquuloo dhiskan baan ku mashquulaye bal maanta bax buu yidhi oo waxaad isku daydaa inaad soo ilaaliso beeraheenni iyo xoolaheenni iyo wixeenni inaad soo egeegto bal maanta isku day salmaan wuxuu leeyahay sababtaasaan gurigii kaga soo baxay waxaanu i faray bibacdi maa yuriid markii aan soo baxay anigoo kusii socda dhankaasi ayaa waxaan soo maray buu yihi qolo kaniisad ku jirta kaniisad kanaystii nasaarada ka mid ah kaniisad kiristan ah qolo ku jirta dabeetana waxaan maqlay buu leeyahy kiniisadaas oo lagu tukanayo oo baryadoodii iyo alla barigoodii baan maqlay horena waxaasoo kale uma maqal buu yihi anuu diintaydun baan ku ekaaye taa kale horeba wax ugama maqal maadaama aan ahaana nin la ilaalinayo inta badan guriga iyo meelahan iskaga xidhan waxba kama warhayn buu yihi markii aan cododkoodii iyo wuxoodii maqlay ayaan isiri buu yihi war bal horta qoladana maadeegteed waxay meesha ku hayaan
waa nin fiطradiisa ay ku abuurantay inuu xaq raadiyo. fiطradiisu waa التأmل والbaحث, inuu wax baadho. markaa waxaan sidhi buu yihi bal eeg nimanka kani waxay hayaan. waanu soo galay buu yidhi, waxaan arkay sidii ay u tukanayeen iyo cibaadaadkii ay samaynayeen. waxaan markaa dareemay buu yidhi dabkaygii inay tari dhaanto diintan kale ee meesha lagu haysto iyo sidan ilaahay loo caabudayaa inay ka roon tahay dabkii anigu aan hurinayay aan caabudayay. markii aan arrinkoodii baan jeclaystay buu yidhi, sidii aan markaa u baxsinayay u raacraacayay nimankan warkoodii ayaa cadceeddiiba dhacday buu yidhi. maalin dhan buu ku qaatay meeshii iyo warraadinteedii. cadceeddii markay dhacday oo aanan aabbana wixii uu ii diray qabanin ayaan su-aal weydiiyey buu yidhi. nimankii waxaan ku yihi wareedhaha diintan aa haysataan ee ilaahay ku caabudaysaan, waxaan rabaa asalkeedii inay iga warantaan, meesha asalkeedu yaallo. maadaama u ninkan xaqiiqo raadinaya wuxuu rabaa inuu ogaado gunteeda. wadaad beershiye joogo kristana un inaanu ka qaadanin ee bale xaqiiqada diintanba inuu soo ogaado. sida daraaddeed waxaan ku yidhi buu yidhi ayna aslu hada diin, diintan asalkeedii iga warrama. waxay igu yidhaahdeen buu yihi diintan asalkeedii shaam bay jirtaa, shaam baa asal u ah. waan ka soo noqday buu leeyahy. marka waxaa meeshan ka muuqata salmaan isagoo nin dhalinyaro ah oo yar inuu yahay nin xaqiiqo raadinaya, nimaan ku kalsoonayn un dadku waxay iska haystaan inuu iska haysto. nebigu wuxuu leeyay laa takunuu imaca taquluuna in axsana naasu axsanna wain dalamuu dalam. ha odhanina buu nebigu yidhi anagu dadkun baanu iskala soconnaa, dadku hadday wanaagsanaadaanna waan wanaagsanaanaya, hadday xumaadaanna waan xumaanaya. wuxuu nebigu inoo tilmaamaya qofka muslimkii inuu mar kasta isagu wanaagsanaado, dad baa xun inaanu xumaanin. waxa uu yahay salmaan alfarisi nimaan ku dhaqmaynin inaa wajadnaa aabaana calaa umma wa inaa calaa aahaarihim muhtaduunkii. aabbayaasha ayaa diin haystay unaana natii baanu iska haynayna aan ku dhaqmayn, laakiin xaqiiqu raadinaya. nimankii wuxuu ku yidhi asalkii diintan buu weydiiyey. wuxuu kaloo yidhi bal meeshiinaasi hadday cidi ka timaado ila soo socodsiiya. reerkoodii buu ku noqday. aabbihii iyo baadidoonkiisiiba ku dawakay oo baadi doonayey ayuu u yimi. ay bunaya ayna kunta buu ku yidhi, aabba xaggaad ka dhacday? meeshii aan kuu diray miyaanan kula ballamin buu yidhi, wixii aan kaala ballamay meeye? salmaan xaqiiqadu u sheegay. aabba buu yidhi qolo halkan oo kiniisad ku jirto tukanaysaan soo maray, diintoodii markii aan arkayna waabay cajab gelisay. sidii aan ula joogayna cadceeddii baa ku dhacday. odaygii markaa wuxuu ku yidhi laysa fii dalika diini khayr, diintan aad sheegaysay aad u tagtay qolada tan khayr kuma jiro, diintii aabbayaashaabaa ka khayr badan, dabkaaga hayse buu leeyahy. salmaan wuxuu yidhi kalaa wallahi inahu la khayru min diinina. maya aabbo, ilaahay baan ku dhaartee tani iyada teena dhaanta, tanaynu haysanay ee dabka la caabudayay tan baa dhaanta. odaygii markaa waxbaa qobi yidhi, wuxuu is yidhi wiilkaba waa lagaa kaxaysan, sawkan maha arrinkii fogaaday. wiilkana aad buu u jecla, waana nin maalqabeena. wiilkiiba wuu xidha, wuxuu yihi gurigaa ku xidhnaado yuu bixin, isagoo uga cabsi qaba inuu dee diinta ka baxo. laakiin insaanka in la qanciyo oo wax loo sheego oo wax la bara xejisa, laakiin xadhig iyo xabsi ma xejiyo. xadhig iyo xabsi marunbu qofku jaanis ku helaya u kaaga baxo. hadaas tiraahdo xadhig oo xabsi oo ilaali oo caynkan, intaa kuma ilaashamayo. wuxuu ku ilaashamayaa inaad wax barto oo qancisid oo wax u sheegtid. salmaan alfarisi wuxuu leeyahay halkiibuu aabbahay igu xidhay.
fariin baan u dirtay buu yidhi nimankii kiniisadda waxaan ku yidhi buu yidhi haddii shaam cid tijaari ay ka timaado dadka ugu badan ee waayadaa un dee socon jiray waxay safarada tijaarada sida safar tijaari hadduu shaam ka yimaado buu yidhi ila soo socodsiiya kadibna safar baa shaam ka yimi waa loo yimi oo waa loo sheego waxaa la yidhi safar tujaara baa shaam ka yimi salmaan wuxuu ku yidhi marka ay dantooda iyo muraadkooda dhammaystaan ee ay noqonayaan markaa uunu soo ogeysiiya safarkani markuu xoolihiisa iibsadee wuxuu soo iibsanaya iibsadee dhammaysta danihiisa ee ay noqosho ku jiraan markaa uun iisoo sheega baan ku yidhi buu yidhi markii dambe haddana u yimaadeena waxaa la yidhi safarkii waa dhaqaaqayaa waxaanay qabanayaan shaam markaas baan iska furay buu leeyay wixii ugu xidhnaa xadhiggii iyo wixii ku xidhnaa buu iska furay dabeetana wuu xidhxidhay salmaan wuxuu ka tegayaa guri barwaaqaysan oo xoolo yaaliin oo maal yaallo oo magac iyo maamuusu ku leeyahay wuxuu u socdaa meel aanu garanaynin oo horeba u arag cid aanu garanayna wuu sii raacaya laakiin waxa uu u safraya waxa weeyaan inuu xaq helo noloshiisu inay mudba'in noqoto uu diin saxa helo ayaa kala weyn cunadan iyo gurigan iyo waxan oo dhan walidaalika uu safarkan bilaaba qoladii buu raacay markuu raacay wuxuu yimi shaam shaam markii uu yimina wuxuu ku yidhi war diintan cidda haysata ayaa ugu fadli badan bali tilmaama diintan maan rabaa bal inaan wax ku ogaadee cidda u aqoon yahansane ugu fiicanee xaqnimo diintan u haysata ii sheega usquf fi kiniisa baa loo tilmaamay usqufku waa nooc min bishop wadaad kaniisad haysta ayaa loo tilmaamay waxaa la yidhi ninkaas baa inta halkan joogto u roon ninkii baan u imi buu yidhi waxaan ku yidhi bu niyow diintan baan doonayaa waxa aan rabaa inaan adiga kuu shaqeeyo adna aada waxi bartid oo aan diintanna kaa barto kulana cibaadaysto kula tukado ninkii wuxuu yihi fadkhul soo dhaafde marka salmaan jay oo isbahaan ku taalla isbahaan waa beershiyada shishe ayuu lug ka soo bilaabay shaam buu tegey waa safar aada u dheer safarkaa kumaankumka kilomitira wuxuu u maraya inuu xaq raadiyo meeshii markuu yimina wuxuu yihi war yaa ugu aqoon yahansan oo diintan si fiican u garanaya waxaa loo tilmaamay wadaad bishop oo kiniisad jooga ninkiina wuu u yimi ninkii codsigiisiibuu u dhiibtay inaan kuu shaqeeyana waan rabaa buu leeyey inaad waxna i barto kulana tukadana waan doonayaa soo dhaaf buu ku yidhi laakiin tajribadiisii uu xaqa ku raadinayey waxaa galay hakad waxa uu la kulmay nasiib daro nimaanay diintu dhab ku ahayn nin shicaarka uu taagay iyo calaamadda u taagan iyo waxa uu rumaysan iyo meeshuu matelaya dhaqankiisa kale aana isku mid ahayn waa nin dadka yidhaahdo sadaqadaysta wax la baxa kan sameeya xoola soo ururiya dabeetana isagu iska qaataan masaakiinna siinin cid kalena siinin waa rajul suu waa nimaan si fiican uga tarjumaynin diintii uu rumaysnaa wuxuu leeyahy ninka kani rajula saw-in buu ahaa dadku sadaqada fari jiro oo uu ku boorin jiray marka loo keenana sadaqaadkaa loo soo ururiyana isaga ayuunbaa meel iska dhigan jiray buu yihi masaakiinta muu siin jirin ilaa iyo uu ka urursaday buu yidhi 7 qilaal qilaalku waa jara weyn waa bahashan maxaa la yidhahdaa jalxad ashuun weyn 7 jalxadood ama ashuun oo waaweyn ayuu meel ku qarsaday oo urursaday wuxuu salmaan leeyahy ninkan aad baan u nacay
aad ayaan u nacay. waad nacaysaa qofka markaad xaqiiqadiisa ogaato. qof aad salahayd diin ka dugso oo isagu dadka khiyaamaynaya oo guraya waxoogaagii masaakiinta loo ururiyey markaad aragto mabda iyo waxba uu ku nacsiinaya. laakiin ninkani xaqiiqa raadis buu ahaa. ninkan unbuu nacyo mu odhan maca diinta tan dadku wax khiyaamaynayaan iska wuxuu arkay inuu ninkani si qaldan diinta u isticmaalayo. dhaqanka soomaalida waxaa ka mid ah ama soomaali badan baad arkaysaa carabta ha sheegi buu ku leeya war carabtu dad khayr le iyo dad xunba waa leeyihi. waxaa laga yaabaa un mashkilad isaga ka soo martay nin carbeed ama waxoogaa lacaga ka qaaday ama dafiray ama adoonsaday ama eriyaday ama waddan ka saaray ama intaa inuu ku saleeyo diinta dhammaanteedba. diinta iyo carabnimadu waa kala nooc. rajulu suu haddaad la kulantay ama rajulu saw-in nin xun haddaad la kulantay macnaheedu maaha inay diintu xun tahay. salmaan wuxuu leeyahay ninkii baa geeriyooday markii ay damceen nasaaradii inay aasaan ba waxaan ku yidhi buu yihi waryaadhehe ninkani nin xun buu ahaa. markaasa waxaa la yidhi maxaad ku garanaysaa? waxaan idhi ninkani sadaqadana wuu idin fari jiray isagaana urursan jiray. maxaad taa ku garanaysaa? waa ka kansigiisii halkaa yaalla buu yidhi halkaa ka raadiya. meeshii baa la baadhay waxaa la helay 7 ashuun ama 7 jalxadood oo uu ku jiro dahab iyo waraq ka buuxa, silfar iyo fida, silfar iyo gold halkaa ka buuxa. markii ay arkeen bay waxay yidhahdeen wallaahi inaanan aasaynin. dabeetana inta la rajmiyey baa meydkiisii la salbiyey oo iskaga tageen. waa la isbaarbaaray kiniisadii nin kaloo sheekhaa la keenay. ninkii sheekh ahaa salmaan wuxuu leeyahay ninkan dambe loo keenay nin baa lay keenay buu yidhi famaa ra'aytu rajula laa yusalli اlkhamsa uraa annahu afdalu minhu azhadu fi اddunya walaa argabu fi اlaakhira walaa ad'abu leyla wanahaara minhu. nin baa la keenay buu leeyahay aanan anigu arag nin 5 tukada mooyaane. cahdigii salmaan ninka 5 tukada kumuha dee saxaabadii la yaqaanay bay ahaayeen. nin 5 salaadood tukado oo dee wax walaaqa lama aqoon. waxaa la yaqaanay nin 5 salaadood tukado oo ilaahay rumaysan oo saxaabiyo dee raggaa ku jira baa la yaqaanay. idan waxa uu mithaal ku bixinaya salmaan alfarisi wuxuu leeyahay maan arag nin 5 tukada mooyaane ninkaasi nin ka fadli badan noloshayda maan soo arag buu leeyahy. yacni saxaabada nebiga mooyaane cid kale oo ninkaa ka fadli badan ninkii kale lay keenay maan arag buu leeyahy. nin adduun ka zaahiday buu ahaa buu yidhi aan adduun uruursigii qiimalo lahayn, aakhiro u go-ay, habeen iyo maalinba ilaahay baryaya. dabeetana ninkan baan waxaan u jeclaaday buu yihi si qof loo jeclaado sida ugu badan, si aanan cidba weliga u jeclaanin ayaa ninkan u jeclaaday. rajulka saalixa ee qofka mabdaa wuu jeclaysiiyaa. rajulku hadduu dhab ka yahay mabda'u oo uu saalix yahay oo isagu multazim iyo dabaqayo wacdigiisa badani ma jeclaysiiyo. laakiin waxaa jeclaysiiya dhaqankan laga arkay ee ah siduu islaamnimada u dabaqayo. ninkaas tajribadii koowaad ee ninkii hore ula galay way ka fashisay. tajribadii labaad ee uu ninkan la galay waxay noqotay tajriba naajixa. laakiin muddo markii la joogay ninkii baa xadaratu lwafaat geeridii baa ku soo ururtay. markuu arkay ninkii inuu xanuunsanayo oo waktigii geerida uu joogo ayaa waxaan idhi buu yidhi hebelow waan kula joogay aadna waan kuu jeclaa si aanan adiga hortaa cid u jeclaan baan kuu jeclaa. maantana waxaa ii muuqata inay kugu soo ururtay ilgeeriyaad baad maantana leedahay. waxaan rabaa inaad ii dardaarantid ee yaad ii dardaarmaysaa. masalada tan waxaynu ka fahmaynaa isagoo salmaan diintii fahmay oo ku dhaqmay ayaa haddana qofku wuxuu u baahan yahay xaqa cid uu la gargaarsado. kelidu ma qurux badna. wuxuu raadinayaa cid markuu caajiso iyadu dhiiran oo xaqa u sheegta, markuu daciifo isagu xaqa u sheega. cid ay diinta isu gargaarsadaan buu raadinaya. saaxiibku waa wax weyn iyo jamaacada iyo bulshadu. keliduna waa wax dhib badan. walidalik salmaan isagoo xaqii fahmo ninkan aada u jeclaado oo diintii ka gartay ayuu haddana wuxuu ku leeyahay ninkii
adiga waa kana waad sii socotaa laakiin weli saaxiib baan u baahnay ee iyaad igula dardaarmaysaa maxaad se ii dardaarmaysaa maxaad ifaraysaa ninkii wuxuu ku yidhi anigu maanta garan maayo mabda'an aan haysto cid haysato dunida korkiisa joogta garan maayo dadkii way dhinteen buu yidhi xaqa ku sugnaa waa madheen waxaana soo hadhay dad diintii bedelay oo ka tegey nin uun baan iminka sii garanayaa buu leeyahy raggan xaqa ku tuhmayey ninkaas wuxuu joogaa buu yihi mawsaltu waa magaaladana taqaaniina ciraaq ah shaamna markan wuu joogaa nin mawsil jooga un baan garanayaa buu yihi ragga aan isleeyahay xaq baa kusii hadhay raggii kale madhe eh kaas baan garanayaa buu yihi salmaan alfarasi awalba xaq buu u socday meesha waxaa ka muuqata inta badan ahlu xaqu inay dad yar yihiin dadka inta badanina inay iska lubsan yihiin salmaan awalba beershiya wuxuu lugta uga soo bilaabay inuu xaq raadiyo maanta oo loo sheegay saaxib kaleo ay diinta isku gargaarsanayaanna wuu raadinayaa salmaan shaam buu ka tegey mawsil buu tegey markuu ninkii u tegeyna wuxuu ku yidhi ninkii kale waa dhintay saaxiibkii ahaa markii la aasay buu iskaga tegey shaam buu qabtay shaam ninkii ugu tegey wuxuu ku yidhi warniyahow waxaa ii kaa soo dardaarmay sheekhaasi hebel la odhan jiray caynkaa iyo caynka ahaayo aan la joogay markii uu geeriyoonayaan ku yihi ii dardaarno adaa la kaa soo dardaarmay ninkii wuxuu ku yidhi bes haddii hebel kula soo dardaarmay kaalay ila joog aniga ila joog ninkii saddexaad weeyaan kana waan la joogay buu yidhi fawajadtuhu khayra rajuli calaa amri saaxibi nin wanaagsan oo halkii saaxiibkii maray isna maraya buu ahaa buu leeyahy waa rixlaad ayuu ku jiraa xaq lagu raadinayo rixlo ka gedisan kuwa maanta inta badan dunida la galo ninkii muddo markuu joogay ayay isagana nin kaloo da-un buu iska ahaaye tiisii soo ururtay salmaan haddana kelinimadii baa dhiftay mar kaluu su-aashii bilaabay uu leeyahay warniyow adigana waan ku arkaa geeridii waa kugu soo socotaa arrinkaygana waad ogay sidaan kuugu imina waa kuu muuqatay dee yaad kale maanta ii dardaarmaysa yaad adna ay bunay wallaahi ma aclamu rajula calىa mihli ma kuna calayhi ilaa rajula binasiibiin ninkiina wuxuu ku yidhi maanta anugu garan maayo cid haysata wixii anagu aanu haysanay ilaa iyo nin jooga magaalo kale oo iyana nasiibiin la yidhaahdo mooyaane ee ninkaa raadcayso oo qabo salmaan weli baadi goob xaqeed buu ku jiraa safarkiisu haddana xidhxidhay 3 nin baa geeriyooday kii afraad buu u socdaa salmaan wuxuu tegay nasiibiin markii saaxiibkii la aasay ee uu geeriyooday ayuu nasiibiin qabtay nin baanu imi buu yidhi isna raggii xaqa ka mid ah oo isna raggii xaqa rumaysnaa ee haystay ka mid ah ila joog buu isna yidhi ninkii nasiibiin buu isna muddo la joogay waxaan helay buu yihi nin saaxiibadii wixii ay ku sugnaayeen isna ku sugan isna markaan muddo la joogay buu yihi baa geeridii kusoo ururtay markaasaan ku yihi buu yihi hebelow waad ogeydo hebel baa hebel ii dardaarmay hebel kalena hebel buu ii dardaarmay hebel kalena mosel baa laysoo dardaarmay kadibna adaa laysoo dardaarmay waa ninkii afraad bal yaad adna ii dardaarmaysa yaad adna ii dardaarmaysa wuxuu uhi wallaahi ma naclamu axada baqiya calىa amrina aamuruka an taأtiyahu ilaa rajula bicamuriya meesha camuuriya la yidhahdo camuuriyadii caanka ahayd ee khilaafata haaruun الrashiid dhulkii la furanayay ahayd camuuriye mooyaane meel kale cid kale oo aan kuu tilmaamo garan maayo magaalada camuuriya la yidhaahdo beledkaasaa nin ku ogaa xaq haysta dee haddii aad jeceshahay ninkaa aad buu ku yidhi
saaxiibkiisanina waa geeriyooday dabeetana waa ka safray waa safarkii imisaad markaa waa kii shanaad yani sham buu bershiyu ka yimi oo sham buu yimi ninkii hore ula joogay wuu dhintay kii labaad ula joogaa dhintay wuu ka safro ciraaq buu qabto mowsal buu tegey kii ula joogay baa dhintay wuu ka safro nasiibiin buu tegey waa sham iyo baa udhexaysaa mowsal dhexdeeda nasiibiin ninkii joogaa dhintay wuu ka tego camuuriyuu qabtay camuuriye ninkii joogay ayuu yimi oo wuxuu leeyay ninkii baa soo dhoweeyey isna xaq uu tilmaamay waa la joogay muddo markuu la joogay ayaa wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey bal waxoogaana xoolana inaan dhaqdo waxaan dhaqday buu yidhi markaasi in lo ah iyo hunayma neef yaro adhiya ama adhi yar baqaraat iyo hunayma ayaan dhaqday buu leeyahy intii isagoo dhaqday lana jooga sheekhaasi jooga camuuriya ayaa isagana geeridii ku timi buu yidhi markaasaan idhi buu yihi baladna dardaaran yaad ifaraysaa xaggaanse u kaca wuxuu igu yidhi buu yidhi niyow aniga waa soo ururtay cid aan kuu tilmaamo mabda-i aanu haysanay diintii masiixiga ahayd ama kristanka ahayd oo aan la bedelina rasmigiiya cid aan kuu tilmaamo haysata ma haya buu yidhi waa wakti ay faaftay yani diinta masiixiyadda bedelkeedii waxaa ka qayb qaatay boqorkii qustantiin lo odhan jiray iyo shirkii niqiya lo odhan jiray shirar baa lagu bedelay boqor aan isagu diinba haysan baa nimankan isugu yeedhay dabeetana 2,000 oo qof dad ku dhadhow baa isu yimi 2,000 oo qof 371 kooxa baa dhan isu raacday kooxdaasuu taageeray waa kooxdii lahayd ciise inay ilaah weeyaan iyo waa dabeeca ilaahiya iyo dabeeco kale buu wada leeyahay kooxdaasuu taageeray kooxihii kale waxaa lagu soo rogay dowladdii romanisku markaasi in kanaa'istooda lala wareego kutubtooda la gubo wax walba la cadaadiyo hardaqa lagu xukumo zanaadiqa lagu xukumo kooxdan yaree dowladda raacsisan iyo madhabkeedii baa faafay idan meelahaasi romanisku ka yara foguun midhar ku libdhay oo wadaadaa mooyaane cumuuman diintii dowladdaa dunida haysata marka kan markaa ninba nin buu u tilmaamaya uu leeya uu ninkaasba in yar u qarsoon tahay oo aan filaya raggii ragga hore ka soo hadhay inuu yahay akhiiran ninkan markii uu yimi ninkani wuxuu leeyahay anigu cid kaloo aan kuu tilmaamo garan maayo laakiin dardaaran kale ayaan ku siinaya niyo waxaa soo galay wakti nebi uu soo bixi doona baa soo dhowaaday nebigaas oo diintii nebi ibraahim dadka ku soo celin doona dhulka carbeedna ka soo bixi doona una soo hijroon doona meel dhul bayna xaratayna dhul labadiisa dhinac ay xara tahay xarada waxaa la yidhaahdaa dhulkan fulkaanuu markuu ka qarxo buurahan sisibka noqda madiinana waxaa la yaqaanaa labadeeda dhinacba in valkanayaal ka qarxeen dabeetana ay sisib tahay ninkaasi nebigaa soo bixi doonaa buu yihi wuxuu usoo hijroon doonaa dhul bayna xaratayn leh geedka timirta la yidhaahdana uu aada ugu badan yahay nebigaasi wuxuu leeyahay buu yidhi calaamadahan kaa qarsoomi doonin calaamadihiisaasi waxaa ka mida buu yidhi hadiyadda wuu qaataa amase wuu cunaa sadaqada se ma cuno hadiyadda wuu cunaa sadaqada se ma cuno labadiisa garab dhexdoodana khaatamu nubuwa shaabadii nebinimada ayaa labadiisa garab dhexdoodana ku taalla haddii aada awoodi karto dhulkaa qabo oo dee rajada ay nebigaasi soo bixi doonaan ku noolow buu leeyahy anuu cid kaloo aan kuu tilmaamo ma hayo salmaan alfarisi albaabkii culammadii kristankaee uu dhex marmarayay waa ka soo oodanta welina xaq buu raadinayaa xaqa cimrigiisii qeyb buu ku soo qaatay intaas oo dhul ana wuu maray isagoo xaq raadinaya haatanna xaqii buu ku talagalay inuu natiijadiisa weli sii raadiyo waxaan go-aansaday buu yihi markaasi inaan safro oo dhulkaa la tilmaamayo aanu safro
ninkii camuuriya ay wada joogeen markii uu geeriyooday ee la aasay ayaan dhulkii camuuriya waxaan sii joogay buu yidhi in muddo ah kadib ayaa safar yimi qabiilada kalb la yidhaahdo ee carbeed niman tujaaro ka tirsan baa yimi nimankii carbeed baa waxaan ku yidhi buu yihi waryaareen haddaan xoola idin siiyo may qaadaysaan oo dhulka carbeed may geynaysaan haa baa la yidhi loodaa iyo adhigaasaan haystaa buu yidhi qaata idinku qaata lood iyo adhiganba bilaad ilcarab dhulka caynkaa iyo caynkaa u eg igeeya waa ka aqbaleen waxaynu joognaa mar kale oo salmaan safar u xidhxidhanayo safarkan wuxuu hanti lahaaba wuu ku bixinaya inagu safaro badan baynu usoo xidhxidhanay laga yaabo waxaynu hanti lahaynba inaynu kusoo bixinay iyo wax loo amaahdayba laakiin safaradaasoo dhamme waxay ku salaysnaayeen xoog sitag iyo beris raadin salmaan laakiin weli safarkiisu wuxuu ku salaysayay inuu xaq raadiyo naftiisana uu badbaadiyo waxa uu markan taagan yahin wixii uu xoolo haystay ee yaraayo uu haystay oo dhan inuu qadimo liajli meel uu rajaynayo in nebi ka soo bixi doono inuu u dhowaado tago saas buu nimankan xoolihiisii ku siiyey dabeetana way soo kaxeeyeen 5 ninoo horena wuu soo maray marka nimankii carbeed way khiyaameeyeen qolo qowlaysataa bay ahaayeen dhexda markay marayeen ayuunbaa inta xadhigga la isugu jiiday ayaa la yidhi waa addoon yar aanu ka soo iibsanay camuuriya yaa naga iibsanaya salmaan oo xaqii raadinaya ayaa isagoo addoonnimo loo iibiyey nin yahuudiya bay ka iibiyeen oo ay addoonnimo uga iibiyeen idan isagoo wuxuu hanti haystay bixiyey oo weli xaq raadinaya ayuu haddana dhibtan la kulmay cusub ee ah inuu addoonnimo ku dhaco oo ninkii xorta ahaa ee reer waxhaystee ladan ka dhashay ee xaq uu raadinaya u safray maanta wuxuu taagayaa addoon waxaa laga yaabaa soomaalida iyo dadka maanta jooga markay addoonka maqlaan inay ka fekeraan nin madow war addoonku nin madow ma ahaan jirin addoonku ninkii laga xoog badan yuunbu ahaan jiray dunidii hore marka la isku duulo cid la qabsado ciddaa xoolahooda iyo dumarkana waa la kaxaysan jiruun raggana addoonnimun baa loo iibin jiray ama white man ahaw ama bersian ahaw ama african ahaw ama waxa doonta ahaw haddii lagu qabto waa lagu iibinaya una waa lagaa xoog batay salmaan nin madow maaha nin bershiyaana buu ahaa suhayb arumi saxaabigii la odhan jiray nin romanaba laakiin baabkaa laysuma eegaynin cidaad ka dhalatay iyo ma cadaan baat iyo ma madow baat iyo warkaasi ma jiro haddii lagaa xoog batay waa lagu iibinayey salmaan ilfarisi waa la qabtay xoolihiina waa laga qaaday dhulkii carbeed markii la yimi iyo yahuudiya meelihii ay deganaayeen waa la iibiyey nin yahuudiya baa laga iibiyey ninkii yahuudiga layga iibiyey buu leeyay waxaan arkay inuu horta dhul timir iyo waxla baan imi raja ay gashay buu leeyahay ah inaan soo dhadhowaaday geed timiraadkani waa geed cajiiba sheekh nablsi baa wuxuu tilmaamayaa timirta hadda madiine ku taallaa buu yihi waxaan rajaynaya inay tahay untii nebi maxamed markuu noolaa ku taallay waxba iska bedelin buu leeyahy waayo timirtu waxay ka mid tahay dhirta cimriga dheer leh ilaa 6,000 sannadood bay jirtaa bay ragga bar sheegayaan yani 10,000 sannadood bay jiri kartaa lacalla inkastoo iminka laga yaabo in cimaaradaba lagu bedelay iyo daare iyo wax laakiin haddana waxaa sii hadhay un inay yihiin baa suurtagal ah tii waagaasii ku taallay un yani waa timirtu waa geed aada u cimri dheer oo aan isbedelin ninkii yahuudigaa markii layga iibiyey ee aan timir iyo wax arkay waxaan rajeeyey buu yidhi meelihii uu saaxiibkay ii sifeeyey meelo la mida un inaan imi anigoo ninkii maalin la jooga ninkii nin kaleo yahuudiya ayuu ka sii iibiyey reer banu qurayda ayuunbuu akhiiran gacantooda ku dhacay riwaayaadka qaarkoodna waxay ku koobsanayaan inuu ninkaa hore uun meeshan lagaga iibiyey ahayd nin kale un baa u yimi calaa kulli xaal waxaa muuqato un inuu yimi banu qurayda inuu yimi waa magaaladii madiine ahayd dabeetana ninkii yahuudiga layga iibiyey buu yidhi ayaa nin u yimi ninkan u yimi waa in adeerkii buu yidhi oo reer banu qurayda ah
fabtaacanii minhu isagii buu iga iibsaday buu leeyahy nin reer banu qurayda oo 7 ayaa iibsaday dabeetana madiina la igeeyey buu yihi markii hore meeshu madiina may ahayn meel yahuudi deganta lacala inay khaybar meelahaasi ahayd oo suurtagal ayaa markii hore lagaga iibiyey dabeetana ninkii nin kaloo ilmaadeeriyiin baa u yimi wuxuu yihi ninkan xooganee addoonkaa iga iibi kiibaa iga sii iibsaday buu yihi dabeetana waxa la geeyey waa addoon labaad buu markaa loo sii iibsanaya isagoo gacantii labaad ee addoonnimoa ku jira ayuu yimi magaalada madiina markaan madiine yimi buu yihi ayaan waxaan ka dareemay buu yihi magaaladani inay tahay magaaladii lai sifeeyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa makaa laga soo saaray buu yihi makuu muddo joogay laakiin wax wara anigu kamaan maqal buu yihi waayo waxaan ahaa nin addoona oo beer qoda oo meeshaasuu dee lagu shaqaysto jooga oo aan war badan magaalada iyo waxa wararka ka imanaya maka iyo waxa aan ka war haynin maalintii dambe anigoo geed dusha ka saaran buu leeyay geed timireed dushii anigoo saaran oo ninkii lahaayee aan addoonkiisa ahana uu meesha hoose fadhiya buu yidhi ayaa nin kaloo ilmaadeeriyiin u yimi markaasuu wuxuu yihi ya fulaan qaatala allahu bani qayla wallahi inahum alآana lamujtamicuuna bquba calى rajuli qadima calayhi min makat اlyowm yazcumuuna anahu nabiy nin kale u yimi oo waramayo leh balaaya allaha ku soo dejiyo nimankii reer hebele awsiya khasraj buu ujeedaa ansaartii nimankii reer hebel hadda waxay ku wada urursan yihiin quba meesha la yidhaahda bay joogaan nin baa uga yimi maka sheeganaya inuu nebi yahay yacni wuxuu ka waramaya salmaan alfarisi isagoo weli addoon ah oo geed timireed saaran oo sayidkiisiina hoos joogo oo geedkii ka shaqaynaya in war yimi sayidka loo sheegayo oo la leeyahay magaaladii madiine ahaa waxaa soo galay nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii aan warkii maqlay buu yihi akhadatni alcurawaau ay alximya waa qandhaa igu jabtay buu leeyahy markaan warkii maqlay farxad daraaddeed ilaa aan u maleeyey buu yihi inaan geedkaba ka soo dhacayo geedkiiba intaan dhakso uga soo daadegay ayaa ninkii ku yidhi buu yihi anigoo islowsanoo ordaya intaan geed ka soo daadegay maada taquul maada taquul war maxaa tidhi warkii igu celi baan leeyahay buu yihi ninkii sayidkaygiioo halkan taagan baa cadhooday buu yihi oo dhir baaxu labada indhood ka jaray addoonkan geedka saaran ee la rabay inuu geed ka shaqeeyo ee wardoonka ah ee labada nina iswaraysanaya dhex ordayeele maxaa tidhi ayuu ka cadhooda wuxuu yihi dhir baaxu indhaha iga soo jaray isagoo igule buu yihi maa laka walihaada aqbil calىa camalik waar adiga iyo waxan maxaa idinkala galay oradoo shaqadaada qabsa buu igu yidhi buu yihi waxaan idhi bu yihi qultu laa shay inamaa aradtu an astahbitahu cama qaal waxba igama gelina wuxuun baan rabay inaan warka runtiisa ogaado baan ku idhi buu yihi muddu salmaan addoonnimadiisii haddana iskaga jiray waxoogaa baan urursaday buu yihi dabeetana galabnimadii markay fiidkii noqotay baan tegey buu yihi quba ayaan ugu tegey buu yihi nebigoo jooga waxaan ku yihi buu yihi waxa i soo gaadhay inaad nin saalixatay asxaabtaadiina inay kula socoto dad dee qariiba atiin oo magaalada aan qariib ku ah qariibkuna kolleyba waa baahan yihi waxoogaa sadaqo aan ururiyey baan hayaa waxaanan arkayaa cid la siiyey inay idinku xaq badantiine dee bal sadaqadan qaata baan ku idhi buu yihi waa waxoogaa sadaqo aan idin siiyey markii aan u dhiibay buu yihi intuu xaggaa isaga duway ayuu saxaabadiisii wuxuu ku yihi buu yihi kulu cuna isna gacantiisa buu ka haystay buu leeyahy salmaan tilmaamtii ninkii camuuriyo joogay uu soo siiyey maxay ahayd dhul beyna xaratayn oo timir leh ayuu ka soo bixi doonaa nebigaasi sadaqadana ma cuno hadyaddana wuu cunaa khaatimu nubuwana dhabarkuu kaga yaala salmaan arrimihii buu rabaa inuu baadi doono markaan arkay inaanu cunayn buu yihi ayaan idhi buu yihi ha tani waa horta mid ka mida arrimihii waa noqday buu yihi nebiguna madiine ayuu qabtay buu yihi maalin kale ayaan haddana u imi
waxaan ku yidhi buu yihi waxaan arkay buu yihi inaad cunaynin sadaqada hadiyaddan baan kuu sidaa ee qaado hadiyaddii buu nebigu cunay buu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabadiisiina waxbuu ka siiyey markaasaa naftaydii waxaan ka idhi buu yihi haataani itnataan halkaa horta labaad haysaa baan idhi buu yihi laba ayaa kuu caddaaday beri dambe maalin dambaan u imi buu yihi xabaalii baqiici alqarqad nebigoo jooga oo jinaaso soo raacay meyd soo raacay oo laba maro sita oo saxaabadiisii dhex fadhiya baan u imi buu yidhi markaasaan salaamay buu yidhi dabeetana halkan dhabarkiisaan ku warwareegay buu yidhi anigoo eegeegaya wuxuu rabaa inuu arko dhabarkiisa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh labada garab dhexdooda wuxuu ku lahaa khaatamu nubuwa oo ah shaabad nebinimo timo u baxay sidii khaatamka ama maxaa la idhahaa shaabadda sideedoo kale u samaysan oo nebinimadiisa tilmaamaya maxamedun rasuulullahi ay qoran tahay waxaan eegay buu yidhi dhabarkiisii khaatamu nubuwa ayaan ka egeegay buu yidhi anigoo baadhbaadhaya ayuu i arkay buu yihi ninkaygan dee kolba xagga dambe ka wareegaya qof waad garanaysaa un de kolba intuu dhabarkaaga istaago raba inuu ku eego markaasuu maradii ka rogay buu yihi maradii uu sitay buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi ka rogay waan eegay buu yihi khaatamu nubuwana waan arkay dabeetana intaan ooyey ayaan anigoo dhunkanaya kusoo foorarsaday buu yihi markaasuu igu yidhi buu yihi war soo wareeg wuu isoo wareejiyey markaasaan sheekadaydii uga sheekeeyey buu yihi sheekadani aynu hadda wadno ee ka soo bilaabmaysay isbahanin isagoo jooga qaryadii jay la odhan jiray sheekadaasaan tilmaamay buu yihi markaan sheekadii u sheegay sida aan ibnu cabaas hadda kuugu sheekaynaya markaan nebiga ugu sheegay ayaa faacjaba rasuulu اllahi salى اllahu alayh waali wasalam an yasmaca dalika asxaabu wuxuu nebigu jeclaystay buu yihi in saxaabadoona maqlaan wuxuu yihi war balkaalaya dhegeysta bal ninkaan warkiisa warkii baan akhriyey buu leeyahy saxaabadii o dhan baan warkii u sheegay addoon baan ahaa buu leeyahy salmaan addoonnimadii baan ku mashquulay dagaalkii beder iyo uxud toona kama qeyb gelin maalintii dambe ayuu nebigu wuxuu igu yihi buu yihi katib ya salmaan salmaanow mukaataba samee mukaatabadu waxa weeyaan ninka addoonka oo isagu is iibsada yani waxa weeyaan cidduu addoonka u yahay ayuu heshiis la gelaya wuxuu leeya niya waan intaasoo xoolaa ku siiyo dee ifasax markaad intaasoo xoolaa ii keenta buu leeyahy fasax baa tahay wuxuu igu yihi buu yihi nebigi katib ya salmaan ninkan yahuudigaa heshiis la soo gal mukaataba la soo gal qoraal la soo samayso oo wax ku soo heshiiya ninkii baan u imi buu yihi kitaabadii baanu wada samaysanay wuxuu yihi buu yihi waxaan kugu sii daynayaa 300 oo geetimireed inaad halkaa bannaan ka beertid oo cusub iyo 40 wiqiyadood oo dahaba inaad ii keento wuxuu rabaa ninkan yahuudiga inuu ninkan dhigmiirto aanu sii daynin saasi daraaddeed wuxuu leeyahay dee diin ahaana wuu arkaa ninkani xaggu usii socdo walidaalika wuxuu yihi waxa aan kaa rabaa 300 oo geetimireedna inaad beertid 40 wiqiyadood oo dahabana inaad ii keentid nebigaan u imo waxaan ku yihi buu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkii heshiis baan la soo galay heshiiskuna intaasuu sheegaya nebigu saxaabadii buu la hadlo wuxuu yihi aciinu akhaakum war walaalkiinu soo gargaara raggii waa baxeen dabeetana waxaa la ii keenay buu leeyay dhirtii yaryaradee timirtee la abqaalayay nin 30 geedii keena mid 20 keena mid 15 keena yani waxaa loogu deeqayaa dhirtimireedkii waa beeraleydii kale ee muslimiinta ahayd ee ansaar ahayd ayaa waxay igu soo deeqday buu yihi wadiyadii ama dhirtii yaryareedee timirtee la beerayay ilaa iyo 300 geed ba la keenay buu yihi dabeetana nebigu wuxuu igu yihi buu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tag salmaanow meeshii lagu gurayey samee markaad dhammaysana ii yeedh adigu waxbaa ku ridine waan baxay buu yihi wuxuu soo sameeyey dee meesha la abqaalayo waa tan inta la qodo meel yaroo biyo xidhana loo sameeyo 300 oo god oo geetimireed lagu rido ayaan soo sameeyey buu yihi markii aan soo dhameeyey baan soo noqday nebigaan u imi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana ii dhiidhiib buu yidhi adigu dhirtii baan u dhiibay mid walba gacantiisa ku abqaalay buu leeyahy nebigaa gacantiisa ku sameeyey salmaan wuxuu leeyahy ilaahay baan ku dhaartay inaan geed quri iga qaadhin buu yihi wuxuu nebigu ii beeray
saddexdii boqol ee geed ee nebigu u beeray xabadi kama xumaanin ee saddexdii boqolba waxay noqdeen dhir baxaysa oo koraysa. maalintii dambe ayaa waxaa dhacday buu yidhi nebigu dagaaladii uu galay ee maqaasidiisii mid ka mida intuu ka yimi ayuu wuxuu yidhi buu yidhi waxaa loo keenay xabad beeda in leegoo dahaba. dabeetana wuxuu yidhi buu yidhi maa facala alfarisiyu lmukaatib, ninkii farisiga ahaa bershiyanka ee kitaabada galay muxuu sameeyey? waa la yeedhay buu yidhi. dabeetana wuxuu igu yidhi buu yihi nebigu qaado tanoo iskaga soo bixi. intaan sidaa u eegay baa waxaan ku ihi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiio dee intan xagee kaga dhacaysa 40 waqiyadood baa laga rabaaye wixii wax yarun bay dhahaayeen. dabeetana intaan eegay baa waxaan ku ihi buu yihi ilaahay rasuulkiisiio ayna taqacu haadihi ya rasuula allahi mima calay, waxa laygu leeyahay inta tani xagee kaga dhacaysaa? nebigu wuxuu igu yidhi buu yihi khudha faina allaha sayu'addiiha bika canka, qaado ilaahay baa kaaga bixinaya intaasi. intii baan soo qaatay buu yihi miisaankuun baa la saaray mise intiisiba waa ka badatay. waladii nafsu salmaani biyadi 40 awqiya faawfaytum xaqahum wactaqtu, 40 waqiyadood bay sidii ku noqotay buu yihi intii yareedaan islaa waxba noqon mayso ilaahay unbaa barakeeyey. uu nebigu yihi qaad adigu iyo u geeyo miisaama iyadaa kuu noqon doontee. waa geeyey buu yihi waa la miisaamay 40kii bay noqotay, xaqiisii oo dhan baan u oofsaday. dabeetana markaas baan ka soo xoroobay buu leeyahy. salmaan alfarisi markaa dagaalkii koowaad ee muslimiintu ay galaan ee isagu ka qeyb qaataa wuxuu ahaa ghaswatu khandaq. culamaai taariikhna waa kuwa sheega, inkastoo riwaayadu sanad ahaan aanay asixin, laakiin culamaai taarikh waxay sheegaan inuu ahaa ninkii lahaa makiidadii lagu badbaadiyey maxay madiina, yacni ninkii keenay farsamada ah ciidanka intan le kama hortegi karayne ee magaalada madiini waxay leedahay laba dhinac waa buur didib ah, saa daraaddeed farduhu ma roori karaan, meel farda lagaga soo weerari karo ama ciidamo caynkaasi kaa soo geli karaan ma aha. dhanna waa beero oo beer baa xidha, iyadana basaantiintu markay isku baxdo iyana maaha dhulu ciidan banaan uu ka soo dagaalgeli kara maaha. dhanka kale oo qura ee buurta yar sirc la yidhaha ku taalo dhankaasoo quray magaaladu ka furay. wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow dhankan furan aan god faras iyo waxba toonaanay ka tallaabin aan ka samayno. waa tii dhankii loo qeybiyey saxaabadii inay godkaasi sameeyaan oo khandaqa meeshii loo bixiyey. ansaar iyo muhaajiriin baa qolaba dhulka qeyb baa la siiyey, nin walba in baa loo mitiriyey intaa. salmaan nin xoogan buu ahaa. dabeetana ansaar iyo muhaajiriin baa isqabsaday oo qoloba waxay tihi salmaan anagu naga midiyey anagu naga midiyey. nebigu waa markuu lahaa salmaanu mina ahla اlbeyt, salmaan xaggaygu ka tirsan yahy buu nebigu yihi ahlu beytku ka tirsan yahy. salmaan ahlu beytka ayuu ka tirsan yahay. maalintaa laga bilaabo dagaaluu nebigu galay salawaatu اllahi wasalaamu calayhi, salmaan kama maqnaanin. qisatu salmaan sida imaamu axmed uu ugu soo aroorinayo ee musnadkiisa, yacni dhul badan 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 oo kale qisada ku soo aroortay, laakiin waxaan qaadanay lafdigii ku soo arooray musnadu imaamu axmed. waa sidaas. qisada tan marka aan soo duuduubo waxay sheegaysaa insaanka saadiq ee runta sheegaya ee xaqa raadinaya inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala xaqa haleeshiiyo. wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana. ilahay wuxuu leeyahy kuwa annaga taayada u dirire u dagaalama ee raba inay xaqa helaan, xaqaanu ku hanuunin. ilmaan wuxuu la kulmay nimaan diinta ka run sheegaynin. wuxuu kaloo la kulmay gurba, meel diintuba ku yarto kolba nin un la sheegayo, meel heblaayo 1,000 kilomitr la soconayo, meel heblaayo nin la sheegayo. intaasoo 1,000 kilomitr buu salmaan socday oo aan wax la wataa jirin ee cagahooda lagu soconayay, isagoo mar kastaba raadinaya qof xaqa ugu gargaara. taasi waxay sheegaysaa qofka muslimka ah iyo culammadii muslimiinta hore markaad u fiirsato rixlaadkay xaqa iyo diinta u geli jireen waxay ahaan jirtay rixlaad qaadheer. walidaalik baa maa waraa'a nahar culamaa intay ka soo safarto qaban jirtay caalamulislaam oo dhan luku mari jirtay. marka taariikha culamaai lxadiid akhrida waxa lagu odhanaya hebel 20 jeer buu baqdaad soo galay, 20 kaba lug buu ku soo galay,
xaggu ninkan 20ka jeer ka soo galaya 20ka jeer wuxuu ka yimaadaa Samarqanda waraashiya meelaha nimanka dawladaha yar go'ay iyo Bukhara iyo dhulkaas laga soo lugeynayay dabeetana Baghdad baa lagu galayay Makiya Madiina lagu galayay haddana Shaam baa lagu galayay Falastiin iyo dhulkan baa lagu tagayay Masar baa lagu galayay intaas waxa la raadinayay diin iyo xaq in la raadiyo waxa loo sheegay mararka qaar kood sanad culuwi iyo quraah sanad maxay sanad alhadith hadathana fulan ayuu wuxuu leeyahay halkan adiga ka qaadanaya mar haduu nooliyo sheekhi aad ka soo qaadatay maan isaga afkiisa ba ka soo qaado inuu sanadka gaabsado daraadeed ayuu u lugeynayay waxay qisadani tilmaamaysaa cilmigu wax la raadceeyay inuu yahay waxay tilmaamaysaa qofka murabbiga caqiido fiican leh wax loo lugeeyay inuu yahay waxay tilmaamaysaa saaxiibka diin kugu dhaama qof loo socdaale inuu yahay waxay tilmaamaysaa maalka inuu yahay diintu wax la siisto maalkaaga oo dhan inta diibiso si aad diin sax ah iyo caqiido sax ah iyo cibaado sax ah u hesho in loo halgamo inay tahay waxay tilmaamaysaa caqabaadka qofku inaanu ku niyad jabin insaanka caazimkee wax go'aansada inay mashkiladii ka hor timaado Salmaan 5 magaalo joogu kala lugeeyeen ku tilmaamayay labadii koowaad mooyaane 4 kale buu kala lugeeyay Salmaan lugtuu nabiga uu lugeynayay inuu raadceeyo adoonnimay galiso oo la kala iibsanayay kullu hadhihi almashkilaat kamay joojinin wixii uu raadinayay waxaynu garanaynaa qofku hadduu xaqa raadiyana in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu gacan qabto niyada qofka muslimka aba khayrun min amali niyadu hadday dhab tahay Ilaahay baa subulka ku fudaydinaya laakiin Ilaahay wuxuu taalacanaya intay niyadaada tani saadiqatay intaad run sheegayso ma yara labac baayo caruurta yareerka ka xaynaya xageed geynaysa wadanka iyo dhuboonaya waan meeshii bariska xiriiriyo oo iska tagaynaa meel la sii joogo badan ma yaani niyadu intay adag tahay ay ku adag tahay inay dhab ka tahay in diin la raadinayo intaad ogoshahay meel nabi uu filayo inuu ka soo bixi doono ayuu arigiisii iyo loodiisiiba siistay inuu niman raaco oo la tuso intay dhab inaga tahay inaynu hantideen iyo waxayna isticmaalo si caruurteenu u hanuunto si aynu xaq ugu sugno si ay diin u bartaan intay dhab inaga tahay inaynu u gaajoono inaynu caqiidadeena saxano inaynu diinteena hagaajisano waxaan u malaynayaa qisadatan walaalaha mu'tamarka qisadan doortay runtii inay dalaaladeeda leedahay waliba dadkeena galbeedka jooga inay dalaaladeeda u leedahay ragga badhba inay halka yimaadaan safarro ku dhow kaa Salmaan u soo maray imse layn ka qarxeen oo imse magaalo tegay oo bariga galbeedba dunida ka maray oo imse dawiradood oo imse goor la xidhay oo imse wadan soo maray akhiiranna goobtan baraf kale ee qabow soo gaadhay barisku helay iyo xoogsi laakiin walilaahi alxamd haddaynu weli diintii hayno waxaa habboon markaasi inay siday ugu adkay dadkan diintu inayna ugu adkaato Salmaan guri lagu ladan yuu ka tegay waxaan uga tegay inuu xaq raadiyo idan inuu xaqu noqdo shay agteena qiimo ku leh oo maalintaad aayad hesho xadiis hesho qof wax ku dhaamo oo aad dadka culimada ah samtigooda wax laga fahmaa yani waxa laga yaabaa nin caalim aan kelmad ku sheegin laba habeen aad meel ula hoyato ama 3 habeen aad la joogto cibaadadiisa iyo dhaqankiisa inay kaaga raad bataan 20 kitaab oo lagu akhrinayay oo intaas oo sanadood lagu soo marinayay walidaalka waxa habboon inaynu wanaagu oo ahaado waxa aynu raadcaynayno ee goobayno inuu wanaag ahaado aakhirana inay noqoto meesha lama huraanka ah aynu ku xisaabtamayno sidaynu u hagaajisan lahayn wallahu a'lam billahi tawfiiq جزا الله